iyadoo xaaladda nolosha xeryaha dhadhaabi tahay mid adag ayaa waxaa jira dad ay nolosha qaxootinimo ee adagi u dheer tahay bugta xanuun. Cibaado Shariif Xuseen waa hooyo Soomaaliyeed oo muddo 12 sano ay ka xanuunsan yihiin laba dhalinyaro oo ay dhashay, kuwaas oo kala ah Cabdifataax Sheekh Maxamed iyo Saare Sheekh Maxamed oo sidaad muuqaalka ka arki kartaan ah dhalinyaro u baahan daryeel caafimaad iyo dabiib quraan. waxayna hooyadani muxsiniinta Soomaaliyeed ee qayrka jecel ka dalbanaysaa kaalmo dhaqaale oo ay kula tacaasho dhibanayaashan ay dhashay ee ka xanuunsan dhimirka. Cibaado Shariif Xuseen sharcani Norway ilmahan iga xanuunsan oo joogo goboladii Dhadhaab aan ka xisaabsan yahay oo intaas oo sanood oo iga xanuunsan oo dhib iyo rafaad oo i jajabiyeen oo igu rafaadsan yihiin oo wax aan quraan ku saar aan lahayn oo wax diin aan ku saar aan lahayn oo wax meel aan ku mariya aan lahayn aan walaalahay dadka ehelka aan ka codsanaya inay igu soo kaalmeeyaan oo meel aan ku geey aan lahayn wiilka iyo gabartaas way 12 sano ay iga xanuunsan yihiin nolosha wax ay haastaan ma jirto saddex wiil ay dhashay saddex wiil ay haasataa saraayadeedo ilaa qarxate wakaas ay saddex wiil ay haasataa ninkii ehelka walaalkay inuu wax i siiyo oo garab ii noqdo aan rabaa walaalay inay i soo caawiyaan oo wax igu taraan aan rabaa meeshan aan joogaa meeshan aan adduun isaan ku ah way arkaysin ehelkayna waxba aan haysan أنا سوق أنت لبضاس وكا أو لبضي عرضك بحالك عرضك عرضك وحجة أيهن ولا عليه إنا يسعى ويان عن ربا أو واحد يوصل تران أو واحد كتاي يوصل ويان أو يقرب النقدان أو واريهن التاسع صناد واريهن أي جات كوبا الحريين ولا عليه إنا واحد يوصل ويان عن ربا إلك أنت إسلام أمدني محمد إنا يسعى ويان أو ولا عليه واحد يوتران عن ربا. لقى كلامنا معلم مختار صوبان دقني وكمذا مجمع علماء حريها الداب ayaa isna dhankiisa ka warbixiyay xaaladda dadkan xanuunsan isagoo muxsiniinta Soomaaliyeed ee qayrka jecel loogu baaqay inay soo tabarucaan sifa wax looga qabto xanuunkan muddada dheer haleelay. walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma iska leh mar kale iyo muuqaal kale oo murugtiisa leh waxaan soo booqanay guriga hooyo Cibaado Shariif Xuseen hooyo Cibaado waa hooyo Soomaaliyeed waxay haysataa oo ku rafaasantahay muddo taqriiban 12 sano ah wiilkeedii curadka ahaa iyo gabadheedii ku xigtay oo labadiiba ay waalan yihiin oo xanuunsan yihiin gabadha hadda iska shaqeynaysaa qolba halkan laga soo bixiyay silsilad baa lugta u xiran wiilkana waa sidoo kale waa halkan hadda uu xiran yahay geedahana ku xiran waxaad maamada haysta iyada naftirkeeda maamada waxaad moodaa duruuftii iyo caqabadihii iyo dhibkii labadan ee caruurteeda ay dhashay ku hayeen in iyada naftirkeeda hadda aad moodid inay xanuunsan tahay walaalayaal waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin weydiinaynaa marka koobaad nin waliba danaha iyo muraadka u leeyahay inuu Ilaahay siiyo waxaan idin ka codsanaynaa wiilkan wuxuu u baahan yahay inta aan qiyaasnay oo aragnay haddii cilaaj la geeyo la quraan saaro maskaxdiisa iyo aqligiisa inuu soo laabanayo aad u dhow yahay ninkan mararka qaar si fiican buu kula sheekaysan marna wuu isdabagedini mar dadka dhan buu iska caayay mar hooyadiisu daro caayay marna wuu yar quman yahay gabadha iyaduna xaalkeeda aad u liitaa waxyaalaha si waale waxa kamid ah muddo in xitaa ilmaheeda laga sii qaatay oo duruufa caqabadaha nolosha waxyaalo badan waxa jira qofka maskaxdiisa saameynayo ayaa jira walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta ah hooyadan Soomaaliyeed oo iyadaba iska xanuunsan la walwalsan la fikirsan murugta ku hayso caruurteeda in Ilaahay idinkii aad Ilaahay darti u soo caawisaan waxay u baahan yihiin ninka wuxuu u baahan yahay caawimaad ah in daawo la siiyo quraan la saaro meel dhimirka la geeyo maxaa ka wanaagsan oo ka fiican qof xanuunsanaa oo miyir kala ah inaad adiga sabab u noqotid caafimaadkiisa inuu soo laabto aqligiisa soo laabto takaaliifta sharciga uu soo fuusho cibaadaysto soomo salaado khayr sameeyo ajir inta la egbaad ku leedahay waxay la mid tahay qof aad nooleysay ila mid tahay waxaan Ilaahay dartiisa kaga codsanaynaa hooyadan Soomaaliyeed ee miskiinta ee qaxootiyaha joogta ee labadii garab taagnaa ee indhaheeda ahaa ee ay islahayd walad saalax ku noqdaan ha ku caawiyaan xaalkooda adduunyo sidoo yahay ee ku dhibaataysan in Ilaahay dartiisa u soo caawisaan
bashiir gaaxnuuga artiyan xeryaha dhadhaab.